waddankeena in loo wada kaco waayo qof kasta oo damiir leh oo insaan ah oo Soomaalinimo ay ku jirto dadkaas taa ilaahay dartiis ugu gargaaran qof walba waxay ismatmaad qiimo helaysaa in qayb qaadaan gurmadkan degdeg ah aan baahan dadka walaalaha dhibaysan macnaha ilaahay ka badbaadi walaalaheena dhibaataysan aad u gargaartiin oo u gurmatiin ilaahay idankiis oo nagala qayb galaan xamlada ee lacagta la aruurinayo si walaalada dhibaataysan loo gaarsiiyo insha Allah tagaasileeda Oslan waxaan u mahad celinayaa sida sharafta leh oo ay qayb qaateen sadaqadan loo aruurinayo dadka dhibaataysan صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقسة هي الأغر كسمايو ولا ميلان سرنا لعن أروريها دكتي dhibaataysnaa wadankii walaalaha dhamaantay meelka baahan ka dhabaysan marka may walaalaha Soomaaliyeed meel ka sii rogaanka baaqane in ku qayb qaadaan gurmadkan degdeg ah aan baahan dadka walaalaha dhabaysan macnaha ilaahay ka badbaadi yoon ilaahay in ka naxariisa hadee macnaha geeka baahada tiidiyo badanta laakiin dadka qurbaha rooga kullada dadkaas may walaalahan ku baaqane in dadkaas degdeg macnaha ka gurmadaan insha Allah barakallahu fiikum jazaakumullahu khayr umada Soomaaliyeed waxaan ka codsanahay in umada walaalada Soomaaliyeed u naxariistaan anaga quruxdeena waxay taalaa qaxootiga waxay taalaa ceelasha biyo quruxdeena taalaa quruxdeena waa meesha qoftirad ilaahay inaa ka cabsatin dadkaas taa ilaahay dartiis ugu gargaaran qof walba waxay ismatmaad qiimo helaysaa insha Allah Allah waxaanu rajaynaynaa walaalada muslimiinta way arkayaan sawirada dadka walaalada soo dhawaataysan yihiin inay ka qayb qaataan hadduu ilaahay yiraahdo waxaan ku boorinaynaa walaalada kale oo adduunka joogo ayagana in ay anaga ugu shaqeynayna walaalada in ayagana ilaahay dartiis u shaqeeyaan oo nagala qayb galaan xamlada ee lacagta la aruurinayo si walaalada dhibaataysan loo gaarsiiyo insha Allah ilaahayna waxaan ugu barinaynaa inuu dhibka ka dulqaado waana ku mahadsan yihiin walaalada nuxur Anas Ibrahim Muhammad Ibrahim waxaan rajeynayaa maamadani cunuga meesha kuma sawiran oo dhibaataysan ilaahay inuu caawiyo waxa uu rajeynayaa ilaahay inuu caawiyo adduunka maalin oo soo noqon doona Soomaaliya insha Allah maanta aad dareemaysid markii dhowr maalmood Soomaalida magaalada joogta ay kaceen oo lacag uruurisi gasacay la qaato magaalada xafiis iyo guriba la galay adigu dareenkaaga oo dadkii ka qayb qaato wax bixin ha noqoto activity min ha noqoto aad uga shaqeysan see dareemaysaa wallahi aad iyo aad aan u faraxsanahay arrinkan maanta Soomaalida dhan isugu timaaday qabatay aad aan ugu faraxsanahay maxaa yeelay waddankeena in loo wada kaco waayo qof kasta oo damiir leh oo insaan ah oo Soomaalinimo ay ku jirto oo macnaha dhiig leh maaragtay waxaan jeclaan lahaa in qof kasta uu kaco meel kasta uu joogo waxaan jeclaan lahaa waan ugu faraxsanahay aniga waa ka qayb qaatay shalay aad ugu qayb qaatay ilaaha ma hadla ilaaha ay waafajiyay inta kale oo Soomaalina waxaan gaarsiin lahaa inaga anigoo Cabdi Maxamed Kaahiye waxaan halkaan u taaganahay walaalahayga Soomaaliyeed oo dhibaataysan ayaan halka u taaganayaa si aan wax ugu aruursho marka walaalayahay dhibaataysan ayaan waxaan rabaa inaan ku caawiyo xoogayga aniga oo Xadar Cali Siyaad oo jooga dalka Norway walaalayaal waxaan idinku boorinayaa inaad walaalaheena dhibaataysan aad u gargaartiin oo u gurmatiin ilaahay idankiis walaalaheena dhibaatada haysato adika ayaa baday dhibaatada adika ayaa baday silica haysta ilaahay ka sokow walaalayaal waxaan idinka codsanayaa meel kasta oo joogtiin umada Soomaaliyeed inaad u gargaartiin walaalaheena dhibaataysan bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Nasiib Cali Barra waxaan leeyahay sadaqada laga qayb qaato tagaasileeda Oslan waxaan u mahad celinayaa sida sharafta leh oo ay qayb qaateen sadaqadan loo aruurinayo dadka dhibaataysan ee ku nool meel walba daafaha Soomaaliya haddana waxaan ku boorinayaa inta kale oo dhiman insha Allah inay si wacan oo sharaf iyo qiimo leh oo qayb qaataan ayagana ajir ilaahay ka siiyo Soomaaliya qabsatay ilaahay un baa caawin karaya halkan waxa ka muuqda waad u jeedaan waa sawiro dad aad u dhibaataysan abaaraha waxaana ka codsanaynaa Soomaaliya meel kasta ay joogtaba inay gacanaha is qabsato gargaar degdeg ah ay dadkooda la gaarto
إلهي قعنتي سايا لقى درك كراب بني آدم قعنتي سلقى ما درك كراب والسلام Soomaali dhamaanteed meel kasto adduunka joogto waxaan leeyahay Soomaali arrimahan ka qayb gala ummadda Soomaaliyeed ee Norway joogta waxaanu faranaa dhammaantood inay dadka Soomaaliyeed ee gaajoonaya u soo baxaan oo wixii ay kari karayaan ay haddii ilaahaymo ay u diraan oo qof waliba halkuu joogay qoys waliba uu haddii la jeebada gacanta geliyo ayaanu dhammaan firaynaa muslimiinta iyo qaasiyan dadka Soomaaliyeed nin kasta oo islaama nin kasta oo muslima nin kasta oo Soomaaliyeed waxa laga doonayaa inuu maanta sadaqa la baxo sadaqaduna waxa weeye waa wax ka horeeya aakhiriya adduunka waa ku libaanaysa صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر وحنيني سيستمر وبلادي ستزدهر صومالي وأفتخر صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقيسة هي الأغر كسمايو أحبها مقديشو هي القمر هرقيسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر مقديشو هي القمر هرقيسة هي الأغر كسمايو أحبها صومالي وأفتخر أنا صومالي صومالي لن ننحني رغم الأسى لن نشتكي سنستمر